maxamed waxa aad u xiisalay in doodahaagu ay toos uga horjeedaan ay challenge gareynayaan sida wax u yaalaan constituency-gaaga tabashooyin iyo saluug qaabka wax loo qaybsaday kamida ayaa muddo dheer oo taxanayd ka soo yeedhaysay adigu ma aaminsan tahay in constituency-gaaga iyo dadka aad matashid wax kaga maqan yihiin qaybsiga awoodaha iyo horumarka ee Somaliland intii aan hore u sheegay dadka la qabaan biyalaanta haraadka waxbarasho laanta waxa soo la qabaan constituency-ga ka yimid ha taban wana aaminsanay inuu wax ka maqan yihiin waana toddobaad dood weyn ee ka taaganta inuu aragtidooda dalka kuraasada go'aanada laga gaaro ma joogante waa ku xigeen noo taqaan ku xigeen go'aan waxba kuma leeyahay markuu boos ka sareeyo joogada isagoo ma hadlate shirkadaada dhe beertaada dhe qoyskaaga dhe dukaankaaga dhe qof kasta oo qofka executive-ka ama power kale ku xigayday intuu qofkaas joogo waxba kuma leeyahay waxaan aaminsanahay aan dadkaan matalo inay dad wanaagsan yihiin oo dadka Soomaalida waa akhlaaqad roon leeyihiin Somaliland sababtoo markii ay Somaliland involve ka hayeen baahida dhabti qabatay gobolada kale Somaliland dadkii kala saaray weeyaan xikmad iyo aqoon iyo garasho iyo daacadnimo kala saaray saddexda arrimood bay leeyihiin aqoon xikmad iyo garasho laakiin waxay ku dhex baabeen oo ay ku dhex milmeen oo fashaaro gareeyadii qablanimada iyo qabyaalada iyo xumaanta ay u fashaaro gareeyay markasta oo taasarreysay oo hooseynayaan sida darteed waxaan u doodaynaa leeyahay waxa la wada yeesho wax wada la yeeshadu ma hayna cadow ku nahay inaan colaad ku nahay inaan diidanay dadka walaalahay wax wada leenahay laakiin markay intay xaq u lahaayeen maamulka ay galaan ay gaarsiiyaan ay go'aanada gaaraan Somaliland baa hagaagaysa waxaan aaminsanahay aragtidii wanaagsaneed ee shalay walaalaha iyagu kala badbaadiyeen innagana inuu kala badbaadiyeen dadka dhan kala badbaadiyeen tun lamid inaan hayno u nib geelino haddii dadkan ay qancaan oo ku faraxsanaadaan oo waxay doonayaan oo dhaba ay xaq u leeyihiin helaan taasina waxa weeyaan dalka saddex wasiiro saddex tabcaan iyo madaxweyne ku xigeen saddexda janan tusaale ku siinaya jananka militariga booliska iyo ay jeeshalada ka xabsiga ilaaliyay haystaan reewdo keep guard hay waa nin xira ilaalinaya bas kafur albaabka cidi kaf waa qof bakhaar joogo bakhaar waxa lagu iibinayno store waa store keeper ma soconayso taasina waayo dadka nabadgelyada haya waa booliska militariga sultanka waxa la gaaray heer la yiraahdo lagu aamini maayo dadkan ka imdaano yaanahay marka anagu ma French banay ma Somaliland tarhayn ma dalka aragtida dalku u dhutanayana waa